Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada kanaalkeena Hikaadshi. Qofka casharkan kusoo jeedinaya waa Muxiidiin Cabdi Cali. Casharkan maanta qaadanayna waxaa la yidhahdaa grammar oo ah naxwaha luqadda. Okay, casharkan waa nagu cusub yahay waxa uuna noqon doonaa cashar aad iyo aad muhiim ugu ah barashada luqadda. laakiinse ma ahan wax aan laga maarmi karin. Dadku luqadda way baran karaan ayagoon grammar waxa weeye ku tiirsanaan. Sababta dunida horumartay maanta lama tixgeliyo qofku intee eray ayuu si saxa u yiri marka yacni nolosha caadiga lagu jiro oo nolol maalmeedka caadiga lagu jiro. laakiinse grammarku wuxuu muhiim noqonayaa markii aad isticmaalaysid waxyaabo academic la xiriira ama waxbarashada sida jaamacadda, iskuulada, xafiisyada markaa ka shaqaynaysid waxyaalahaas oo kale. haddii shaqo noocaas oo kale la xiriirtid si uun aa ula xiriiri inaad waxa weye waxyaabaha qoraysid, haddaad buug qoraysid oo kale, haddaa luuqadda yacni aad baranaysid oo linguistic aad noqonaysid, waxyaabahaasoo dhan grammarku muhiim buu noqonayaa. Sababta waxaa laga rabaa wax walbo aad dhahaysid inay u qalmaan darajadaada waxbarasho. Okay, so casharka annagoon hadalka badin aan casharka u guda galno. So su-aasha ugu horreysa oo isweydiinaysa waxa weeye what is a grammar? Waa maxay grammarku? waa maxay? Okay, answerka aan halkan ku bixiyey waa answer xoogaa iska yara yacni adag oo markii si loo eego aydin haddeer si dhaba u fahmi karin ilaa aad dhex gashaan casharka. So grammar is the structure, waa qaab dhismeedka and the system iyo qaabka ay u shaqeyso of a language. Language qaabka ay u shaqeyso oo iskula xiriirto qaybta kale ula xiriirto iyo qaab dhismeedkeeda ayaa la yidhahdaa grammar. waxaa ka mid ah qaab dhismeedka syntax wax la yidhahdo. waxaa ka mid ah wax la yidhahdo phonology, waxaa ka mid ah wax la yidhahdo morphology, waxaa ka mid ah wax la yidhahdo semantics. Okay, qaybahaasoo dhan hadhow markaa grammarka dhex gashaan ayaa u tegi doontaan qayb walba iyo waxa ay qusayso iyo sida ay waxa weeye waxtar ugu leedahay waxbarashada luqadda Ingiriiska. marka casharkani waa cashar muhiima. halkan waxaan kuugu soo gaabshay erayo Soomaali ah oo aan ku soo fududeeyey halka aad ka fahmi kadib grammar waxa uu yahay. Grammarku waxaan nidhi waa qaabka aan u habayno erayada si aan u samayno weedho saxan. runtii grammarku waxa weeye muhiimadda ugu weyn uu leeyahay waa qaabkan. si qofka weliba Ingiriishka baranaya waa inuu awood u leeyahay inuu erayada habayn karaa si ay micno dhab ah u sameeyaan markii la joogo wax academic la xiriira ama waxa weeye official ama formal waxa loo yaqaano. waa markii shaqo rasmi ah la qabanayo sida xafiisna ka shaqaynaysa oo kale ama waxa weeye waxbarasho ku jirto arday jaamacadeed tahay. haddii aad Ingiriishka ama grammarkii sixi karan adigoo jaamacad jooga waa dhibaato, laakiinse ma ahan waxa aadan ka maarmi karin. weli wax waa baran kardhaa adoon waxa weeye English grammar aan awoodda saarin ama si fiican u aqoon. Okay, so halkan waxaan kusoo gudbiyey wax la yidhahdo rhyme oo ah horis baan kusoo koobi karaa ereygaas. waxa uu horiskan ku saabsan yahay 8 parts of speech wax la yidhahdo 8 qaybood ee hadalka markii Englishka la eego waxaa loo qaybiyaa 8 qaybood. 8dan waa basic, marka waxaa loogu talagalay qofku inuu erayada ama weedhaha uu qorayo inuu 8daas waxa weeye qaybood ee hadalka uu leeyahay qaybaha ku jira inuu kala sheegi karayo, sidoo kalena booskooda ku habboon uu ku isticmaali karayo. marka tan waxa weeye waa hees weeye yara. marka anigu si caadiyan kugu akhrin doonaa, hadhowna waxaan descriptionka kusoo dhigi doonaa heestii oo si caadiya loo qaadayo. ciyaal baa loogu talagalay, laakiinse maadaama aad luqadda baranaysid weli ciyaal ayaa ka tahay. annagoo dhan baa ciyaalka ah. mar walba aan waxaan isku dayaa inaan dhegeysto heesaha yararka, sababta ah waxaa igu dega erayada, waxaan fahmaa micnaha dhabta, waxaan fahmaa dhawaaqa dhabta, waxaan awood u yeeshaa inaan erayadaas soo xasuusto waqti badan. marka saa daraaddeed idinkana waa inu ku dhiirigelinayaa fiidiyo macnaha kooban oo heestan yartaa ku saabsan keliya baa hoos inay soo dhigi doonaa, hadhow idinkuna waa eega doontaan. laakiinse marka hore waxaan rabaa inaan erayada waxa ay yihiin iyo micnaheeda aan isla aragno haddii ilaahayna. 8dan qaybood waxay noqon doontaa qaybo casharad soo socda oo aan mid walba si gaar u eegi doono haddii eebba idmo. marka wuxuu leeyahay every name, magac walba is called waxa la yidhahdaa a noun, magac baa la yidhahdaa. nounku waa ka guda wen yahay nameka. labaduba magac bay tusinayaan, laakiinse kan nounka ah ayaa guda weynoo
ciwaan weyn waxaa looga dhigi karaa waxa uu ka kooban yahay magacyada iyo waxyaalahaas kale sida asfield sida waxa weeye dhul go-an oo dhul beereed oo kale ama dhul caadi waxa weeye loogu la xeeray oo kale and fountain iyo ilbiyood street wado and town iyo magaalo markii aad heesta dhageysanaysaan si horis leh oo habdhac leh ayay u soconaysaa marka macnaheeda fahmaysaanna wax weyn bay inay samayn doontaa haddii ay bidno every name magac walba is called waxa la yidhahdaa noun magac asfield sida waxa weeye beer oo kale dhul beereed oo kale and fountain iyo ilbiyood street wado oo kale and town iyo magaalo in place of noun booska magaca the pronoun in place of noun booska magaca the pronoun stands magacyaalka ayaa istaaga booska magaca maxaa istaagi kara magacyaal sida as he sida isaga and she iyo iyadu can clap their hands way sacabin karaan gacmahooda way isla dhici karaan the adjective sifeeyuhu describes waxa uu qeexaa a thing shay sida as magic wand sida ul loogu talagalay in lagu qabto waxyaabaha sixirka marka magic wand baa la yihahdaa or bridal ring ama faranta curuseed okay most verbs ficilada intooda badan mean action waxa ay la macno yihiin ama tusaan fal something done wax la sameeyey most marka la leeyahay waxaa jira ficilo aan tusayn ficil wax la sameeyey ama fal dhacay to read sida inaad akhridid oo kale and write aad qortid to jump inaad boodid and run and orodid okay how things are done sida ashyaada loo sameeyo sida fiiri ereyga aan isticmaalayo sida ashyaada ama waxyaabaha walxaha loo sameeyo the adverbs tell falkaabaha ayaa sheega sida as quickly si degdega as quickly waa si degdega inta badan Soomaaliga haddaad rabtid falkaaba inaad heshid waxaad ka fiirinaysaa ereyga si degdega as quickly si degdega slowly si tartiiba badly si xun well si wanaagsan the preposition waxa weeye meelayuhu shows wuxuu tusiyaa relation xiriir buu tusiyaa wax meel ay yaalaan iyo xiriirka ay meesha la leeyihiin ma kor bay ka saaran yihiin ma hoos bay ka saaran yihiin ma gudahay ku jiraan ma dhinac yaalaan ma ka dambeeyaan ma ka horeeyaan waxyaabahaas oo kale ayuu tusiyaa okay as sida in the street wadada dhexdeeda or at the station ama xarunta agteeda xarunta ayuu qofkaas joogdaa at the stationka macnayaal badan buu yeelan karaa sida waxa weeye gaariyaasha laga raaco sida kan booliiska ama militariga oo kale marka xarun baan iskaga soo koobanaa marka prepositionku waxaan iri meelayuhu shows wuxuu tusiyaa relation xiriir as sida in the street wadada dhexdeeda macnaha intaa maxay tusinaysaa dhex bay tusinaysaa or at the station ama xarunta agteeda xarunta qofku markuu joogo agteeda la dhihi karaa sababtoo ah xarunta kuma guda jiro waxa laga yaabaa xarunta inay aad u weyn tahay ama waxa weeye uu ag joogo adiga at baa la isticmaalaa ereyga conjunctions isku xiruhu join waxa uu isku xiriiriyaa in many ways habab kala duwan ama habab badan buu isugu xiriiriyaa wuxuuna isku xiriiriyaa sentences weedhaha words erayada or phrase ama laba phrase ereyga dhabta ee mataqaana Soomaaliga lama heli karayo marka phrase baa loo yaqaana waa jumlad yar oo gaaban oo macno tusinaysa falna uu ku jiro okay the interjection la yaabku cries out waxa uu ku qeyriyay heed waxa laga wadaa attention ama waxa weeye soo jeensada dad baa laga yaabaa inay wax u sheegaysid marka dadkii waxa aragtay mashquulinka waxa dhahaysa heed yani waxa weeye soo fiiriye way maqla way dhageysta way an exclamation point must follow me wuxuu yiri calaamad la yaab exclamation waa la yaab exclamation point maxaa laga wadaa calaamad la yaab must follow me waa inay raacda calaamad la yaab timaada wataas halka gadaal ka raacsan the interjection waxa la yiri la yaabku cries out waxa uu ku qayliyay ama ku ooyay heed an exclamation point must follow me waa in calaamad la yaab ay raacda okay so thank you for watching don't forget to subscribe like and share haddii kanaalka ku cusubtahay fadlan ha ilaawin inaad kusoo biirtid haddii wuxuun ka faa'iideyna
liketa iyo shareta iyo commentiga midna ha ka baqaylin aad iyo aad baa umahadsantihiin cashirka lamida ama ku xiga inta aan ku kulmi doono waxayna kaga tegayaa nabad iyo nowla kulantiga wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakatu